بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا مركلية برامجكي عافيمادكا oo toddobaad walba oo kala idin kaaga yimaada magaalada Nairobi barnaamijku si gaar ah wuxuu idin kaaga imaanaya isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad waxaana ka howlgala dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta dhaqtarka oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka waxa uu ka howlgalaa isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii toddobaad walba oo kale barnaamijka waxaan uga hadalnaa mowduuc gooniya toddobaadkan hadii Bakar Ali noqdana waxaan uga hadlaynaa cudurrada ku dhaca caruurta doctor ku soo dhaw barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim Abdullaahi aadi aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloon rabaa inaan u mahadceliyo Somali Cable shaqaalaheedii oo dhan iyo madaxdeedii inaan iraado aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad nasiinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed ku wacyigelin aan ugu sameyn karno ama dhaqtar aan ku siin karno marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba adduunka meel ay ka joogaanba khaasatan reer Kenya aan waqti xaadir la joogo waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar walba talada caafimaad aad siiso dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka Somali Cable daawadayaal waxaan idin xasuusinaynaa in isbitaalku uu shaqeynayo 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo iyo daawooyin kala duwan oo laga keenay wadanka Jarmalka sidoo kale isbitaalka waxa laga ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska ee NHIF inuu soo gaari karo isbitaalka oo ka howlgalo dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta iminkan waxaan idinku soo dhaweynaynaa intaan barnaamijka guda gelin qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta International Health Center oo ku taala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight ama iminka waxaad kala xiriiri kartaan telefonka shaashada idinkaaga muuqda bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Ali Mucu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Ali baa u jooga ee hamoogan Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Ali Mucu Aweys Dr. Ali Mucu Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaallo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda waa hagaag daawadayaal qaybihii hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan waxaana toddobaadkan aan uga hadlaynaa barnaamijkii haddii Bakar Ali noqdo cudurrada ku dhaca caruurta waxaana nagala qaybgelaya oo toddobaad walba oo kalena nagala qaybgala dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta dhaqtarka oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalkana waxa uu ka howlgalaa isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii sidoo kale isbitaalka International Health Center waxa lagu soo kordhiyay qalabyo kala duwan oo laga keenay wadanka Jarmalka iyo daawooyin sidoo kale waxa isbitaalka laga ogol yahay in qofka haysta kaarka caymiska ee NHIF uu soo gaari karo isbitaalka oo ka howlgalo dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta doctor waxaan ku weydiinayaa cudurradan ku dhaca caruurta maxaa lagu garan karaa Abdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa marka aan dib ugu soo noqdo su'aashaada waxaa jira Abdullaahi oo caruurta cudurro badan ayaa ku dhici kara laakiin sida lagu gartaa caruurta ma fududa caruurta maxaa dhacay waxayna u fududeen marka ugu horeysa caruurta ma ku sheegi karto meesha laga hayo meesha xanuunaysa kuma sheegi karaan waxa haya kuma sheegi karaan qafka waxa sheegi karo wax laga heli karo informationka laga heli karo waa hooyada ama qafkii la jooga adiga 24 saacadood ama ayeeyaha ahaato ama habriir ahaato ama eedaha ahaato qafkii la jooga ayaa ku sheegi kara marka waxaa jira caruur badan inta lagu keeno qandho iyadoo haysa ay ku leeyihiin cunugeygan wax ma cabayo wax ma cunaayo cunitaankii uu diiday qandho aan dhamaanayn ayaa haysa
markii taasu la sheego hooyada saa u sheegto hadda ninka dhakhtarka haddii aqoontiisa uu leeyahay uu garan karo markiiba waa garan karaa. haddii uu cunugka cabaado inuuna wax laqi karin, wax cuni karin, wax cabi karin, laba meel bes ayaa laga hayn karayaa. labadaas meel oo ah ama dhuunta in laga hayo wax la yidhaahdo tonsillitis, ama wax la yidhaahdo maaragtay otitis media oo dhegaha. markii dhegaha iyo dhuunta laga hayo adiga laftigaaga oo qof weyn ah ma cabi karaysid, mana laqi karaysid, dhuuntaa laga hayaa, tonsil baa haysaad oranaysaa, quun baa hayaad oranaysaa. adiga waad sheegi karaysaa meesha laga hayo oo meeshaasaa tilmaamaysaa laga hayo, ama dhegtii baa tilmaamaysaa. laakiin qofkan markuu laqo dhegtii baa xanuunaysa ma laqi karo, markuu laqo dhuuntii baa xanuunaysa ma laqi karo. marka caanihii buu diidayaa, biyihii buu diidayaa, shaahigii buu diidayaa, cunto iskaba daaba. marka xumadaas taalla ee waxaanu cabi karin, hooyada markay taa sheegto dhakhtarka markuu aqoon u leeyahay isla markiiba wuxuu fiirinayaa dhegaha, isla markiiba wuxuu fiirinayaa dhuunta, markaas kadib calooshuu taabanayaa, sanbabkuu dhegaysanayaa, waa ogyahay. midda keliya oo cunuga laftigiisa tilmaantiisa laga arki karo waa markuu qunfacayo. markuu qunfacayo uu qox yiraahdo waad arkaysaa ninkan in sanbabkiisa lagu jiro, laakiin hooyadaaba kuu sheegaysa qunfacna waa keenay ee amaan waanu qunfacayaabay ku oranaysaa. marka horta midu waa taas. midda labaad oo caruurta ugu daran ee ku dhici kara waxa weeyaan wax la yidhaahdo ma aragti cudurro oo virus ah jira, sidii bit mumps la yidhaahdo oo qanjirkan inta iska soo barara oo tibishal marmar inuu lagu shakiya. waxaa jira wax la yidhaahdo rosea inuu gaduuto cunugii oo dhan nabra ka soo wada baxo oo qandho rosea la yidhaahdaa, iyo maza wax la dhaho oo viruska infectionka uu ka mid yahay, oo laftigood in daawo oo fudfudud iyo qandhab jibin iyo in la siiyo maahane aan la siin karin daawo xoog badan oo waxaas mataqaanaa baabi'iya virus infection hadduu noqdo cudurkaas caruurta ku dhaca, ama hadduu noqdo kuwa wadad waaweyn ku dhacaba sida loo daaweeya way adagta. marka taasu cudurkaasna waa jiraa. waxaa kaloo jira oo hooyada markay kuu timaado ay kuu sheegi kartaa cunugayga shuban aan dhammaanayn, shuban baa ka socda, wuu shubmayaa, cunto ma cuni karo, markuu afka geliya cuntadii caanihi oo cabo horoo ka shubmayaa. asagana waa mid kale oo ayadana dhib ah. waxaa kaloo hooyada ay kuu sheegaysaa cunugayga markii uu kaadinayo uu oohin kala wareegaya, kaadidii baa gubaysa, haddee markaas keliyaha ee kaadahayste ayaa laga hayaa. marka aad dhakhtarka aad u geyso oo saas u sheegto, baaritaan buu sameynayaa, wuu fiirinayaa. haddii loo baahdo saxaradaa la fiirinayaa, haddii loo baahdo kaadidaa la fiirinayaa, haddii loo baahdo dhiigag baa la qaadayaa, haddii loo baahdo ultrasound scan wax la yidhahdaa abdomen calooshi baa la fiirinayaa. cunuga markii intaasu la baaro oo laga ogaado dawo u qalanta ayaa la siinayaa. hadduu alla idmo caafimaad buu helayaa cunuga. laakiin waxaa u badan haddii mataqaanaa inta meelaha la geeyo oo la yidhaahdo qallajiyahan sii oo waxaan xanuun baabiyahan sii oo kii la siiyo haddana loo celiyo haddana kii la siiyo, marka cunugii waxawaaye dawadiiba la qabsanayaa. wax fiican ma aha. waxaa wanaagsan haddii ilmaha saas oo kale cudurkaas uu qabto kaba dhigba marka hore in mataqaanaa meeshaas aad geysay wax laga garan waayey, waa inaad u geysaa dhakhtar aqoontiisa le cunugaagas uu kugu bogsado oo ilmihiisaas ugu dhexgalo oo u cayaaro oo adduunkiisa iska dhexgalo. taasu laftigeeda waa aad bay muhiim u tahay. marka caruurta waxaa loo baahan yahay mar walbaaba in la tuso, loo sheego, dhar ka gasho, qabow hadduu jiro dhar gasho, kan gasho, u geli adiga laftigaaga ku qasab. marka 2 jir 3 jir hadduu yahay ama 4 jir xataa 7 jir hadduu yahay weli waa ilmo waa ilaawayaa. markastaaba markaad tiraahdo samee hayuu ku leeyahay wuu ilaaba, hooyadii markastay u sheegto. marka waxay u moodaan marka habraha weliba cusub aan ka saynin oo ku cusub ilmaha, markay tiraahdo saas yeel hooyo wixii markuu hayuu leeyahay hayo hooyo markuu inta ka baxo iridkaas uu ka baxo waa hilmaama oo baxa. caadi waaye, ilmaha ma xasuusan karaan. xasuusta saxda ah waxaa imaanaysa 8 sano 9 sano markii la gaaro. ka hor oo dhan waa iska caruur oo way ilaawayaan, mar kastaaba ilaawsha badan bay ilaawayaan. xataa waxay ilaawayaan marmar inay cunaan
ay ilaabayeen in la ogaado laga taxadaro la ilaaliyo ayuu baahan yahay doctor ma jiraan xanuuno uga yimaada dhanka hooyada oo kale markay naaska siinayso canuga oo kale xanuuno uga yimaada ma jiraan cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa haa cudur waa jiraa hadday hooyada jiran tahay markay naaska siiso shuban buu keenayaa ilmaha way shubmayaan hadday hooyada jiran tahay marka waxaa kaloo jira cabdullaahiyow dad aqoontiisa lahaaba iska yar dhulkan weliba dhulkan oo ku yar waxaa loo baahan yahay xataa hooyada hadday naaskeeda la nuugaayo dawooyin culays ah lama siin karo aniga marar badan ayaan meeshaan ku arkay habro la nuugaayo oo mataqaanaa dawo culus ay qaadanayaan ee naaskiina ay nuujinayaan waa mamnuuc haddii kale kaba dhigba hooyooyinka qaarkood waxay rabaan ilmihii inay kala dheereeyaan iyagoo naaska la nuugaya ay hormoon qaadanayaan wax wanaagsan maaha lama siin karo hormoon haddaad qaadanayso daawooyinka antibiyootikada la yidhaahdo qalajiyaha weliba culayska haddii aad qaadanayso waa mamnuuc ama daawo gaaska haddii aad qaadanayso naaska lama siin karo waa in wax adiga kuu qalma oo aadan cilmahana dhibaato u geysanayn adigana faa'iido aad ka gaaraysid ayaa la heli karaa kuwaasaa la qaadanaya sidoo kale waxaa sheegtay in dhuuntoo kale canuga haddii caana marka diidayo kale ama cuntooyinka ay diidayaan haddii ay gaaraan oo kale dhuun xanuunkaasoo kale ma infectiona keeni kara cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa haa infection la yidhaahdo streptococcus iyo staphylococcus waxa la dhaho ayaa cudurkaas tonsillitka keenaya waxaa kaloo jira cabdullaahi haddaan kuu sheego ilmo habeenkii markay jiiftaan ayna hurdi karin oo sanka ayna ka seexan karin sankiibaa ka xiran marka waxay u geenayaan dhakhtar qaarkood ay u geenayaan waxaa laleeyahay operationkana ha lagu degdegin yaan lagu degdegin operationka waxaa la yidhaahdo oo sankaa laga qalayaa qoonkaa laga qalayaa yaan lagu degdegin dad waxaa jira mididiska wata ee raba wax inuu iska kasho looma baahna waxaa dhici karta daawo haddii la siiya inay waxaas ka joogsadaan waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed cabdullaahi oo inaan mar kale u sheego dhuunta bahalka ku jiro oo qoonka la yidhaahdo waa loo baahan yahay difaaca jirka ayaa u baahan hadduu dhib kugu keeno oo dhibkiisa u bato oo bahalli weyninka ka bato oo meeshii o dhan xirto waa qalitaan markaas lagama maarmaan laakiin waa in heer sare u gaaraa hadduuna gaarin lama qalaayo qalitaan looma baahan aad iyo aad umahadsan tahay dib ayaan kugu soo laaban doonaa kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Muxuu Aweys oo inagala qayb galaya barnaamijka caafimaadka oo toddobaad walba caawa oo kale aad ka daawataan telefishinka Somali Cable barnaamijku wuxuu si gaar idinkaga imaanayaa isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Isli isbitaalkuna wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo iyo daawooyin laga keeno wadanka Jarmalka sidoo kale waxaa laga ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska ee NHIF inuu soo gaari karo isbitaalka International Health Center oo ka shaqeeyo dhaktarka caanka Dr. Cali Muxuu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta sanadadii ugu dambeeyay dhaktarku wuxuu ka howlgalay isbitaalkiisa ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Isli International Health Center iminkana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta International Health Center ma iminkaba waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Muxuu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Muxuu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Muxuu Aweys Dr. Cali Muxuu Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaallo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada
shaashada kaga muuqda. waa hagaag daawadayaal qaybihii dhexe barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan waxaana inagala qaybgelaya dhaktarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta. dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii kasoo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 ama iminka waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda. isbitaalku wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo iyo daawooyin laga keenay wadanka Jarmalka. sidoo kalena waxaa lagu ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska NHIF inuu soo gaari karo isbitaalka International Health Center. toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynaa haddii qaybtii hore barnaamijka ay ku dhaafto oo iminka aad nagu soo biirtay cudurrada ku dhaca caruurta waxaan inagala qaybgelaya dhaktarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys. doctor waxaan ku weydiinaya waxaa jira caruur naqaska uu ku dhigo kale in naqaska caruurta uu ku dhigo kale maxaa keeni kara? cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. haddii caruurta naqaska uu ku dhigayo horta sambabka ayaa laga hayaa, sambabkaas ayaa laga hayaa. marka waxaa jira cudurro badan laftigood oo la yiraahdo coach cough. waxa waa cunuga markii uu kaas ku dhaco uu leeyahay marka kala joogsan maayo. marka laftigiisa waxa waa cudur virus ah oo ku dhici kara ilmaha. marka intuu maanta oo anaga waxaan dhihi jirnay Soomaaliya qiixley baa la dhihi jiray. aniga yaraanteeda xasuustaa qiixley buu qabaa la dhihi jiray. qiixdaas markuu yiraahdo kaasu laftigiisa neefta ayaa dhibaysa. haddii bronchitis-ka uu ku dhaco neefta dhibaysa. qandho iyo haddii ay u timaado badan uu qunfaca neefta dhibaysa laftigiisa uu qunfaco. marka kuwaas oo dhan waa kuwa neefta ku joojinaya ayaa ka mid ah. ilmaha qaarkood reaction waxay sameynayaan markii keliyaha laga hayo waa nervous, ma fariisan karaan. orod xagga orod ma fariisan karo, xanuun baa haya. markasto wuxuu isku baabi'inayaa inuu gadaal iyo hore u ordo markuu 2 jir 3 jir 4 jir uu yahay ma garan kartid. marka laakiin markii kaada ay ka bixayso ayuu qaylinaya, qayla dareemaysa. taasay ku garan kartaa hooyadana. marka maxay kala duwan yihiin marka qabowga haayo kale iyo tan? qabowga iyo tan waxay ku kala duwan yihiin. midna waa guduhu ku jiraayo keliyihii iyo kaadaheystu haystaa. midna qabowgii baa galo qunfac waaye. qunfac laftigiisa marka hore qunfacu bilaabaya yaryar, markaas ka bacdi qandha u imaanaysa. sidoo kale doctor dabaysha banaanka ka dhacaysa oo kale haddii caruurta lagu soo ciyaarsiiyo meelahaas oo kale dabayshaasi dhibaato ma u keeni kartaa caruurta? cabdullaahi su-aashan waa su-aal aad iyo aad wanaagsan oo cajiib ah. ilmaha waxa jirada ku rida ama dadka waaweynba waxa jirada ku rida wax kale maaha, waa dabaysha. dabaysha haddii aan dhar fiican laga gashanin, hadda waqtiga xaadirsa aad ogtahay Nairobi waa qabow. qabow ha ahaato haddii ilmaha inta shaati kaliya loo soo geliyo la yiraahdo orod banaanka ku cayaar, hadduu soo noqdo duhurkii ama galabtii asoo jiran buu kuu soo noqonayaa. maxaa dhacay? qabowgii jirkiiya qaboobaya. markuu ku dhaco ama sambabkuu ka gelayaa ama dhuuntuu ka gelayaa ama dhegtuu ka gelayaa ama calooshuu ka gelayaa keliya ay kaadahaysta. marka qabow waa cudurka bilowgiis meel kasta qabow ku gala ayuu ka bilowdaa. infectionka la sheegayo waa bahalo adiga jirkaaga ku jiro caadi oo adiga aad ku nooshahay, laakiin markii qabowgaas uu kugu dhaco ayuu isbedelayaa oo jirkaaga iska bedelayaa oo jirra noqonaya. marka waxa weeye markii daawada lagu siinayo xataa kuwaas ayaa la rabaa in la dilo, la baabi'iyo. xataa qaar fiican baa raacaya marmar oo meesha ku dhimanaya. laakiin qabowga waa cudurka bilowgiisa meesha oo ka soo asaastamo waa qabowga. waxaa jira caruurta qaar in kaadida ay ku ceshanto kale, kaadi ku celiskaasoo kale waxaa keeni kara xafaayadaha badan oo loo xiro. cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. xafaayadda ma keenayo kaada inay ku celiso. kaada hadday cashoonto waxaa keeni kara horta caruurta inkastoo uu ku yaryahay dadka waaweyn uu ku badan yahay. haddii meeshii kaadada soo maraysa ayaa mar waxaa ku dhacaya wax la yidhahdo stricter way isxiray. haddii isxirto ayay imaanaysaa. markii infectionka u yimaadana ma kaadin karo, wuu cabsanaa. sidii markii saxarada ay kugu adag tahay aadan u saxaroon karin oo markii aad tiraahdo saxaro wixii gadaal uu noqonaya aadan saxaroon karin markii saxaradii weyn ma soo mari karto meeshiina reflector baa jira. reflect bladder wax la yiraahdo, reflect ani wax la dhaho. xagga dambe markii saxarada ay weyn tahay reflect buu sameynaya oo isxiraya. xaggaas horena saas oo kale markii ay soo bixi rabto uu xanuun uu cishada ma soo bixayso, kaadi way ku cashoomaysaa. marka doctor waxaa jira in hooyooyinka qaar ay siiyaan caruurta daawooyin iyagoo iska qiyaasanaya cudurka canugaas. cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. subxaan allah subxaan allah. cunugaaga haddaad jeceshahay oo aad rabto inuu ubad kheyr qabo ilaahay wax ku ubad kheyr qabo adi wax ku tara haddii aad rabto inuu noqdo
waa inaad caafimaadkiisa ka dadaashaa laakiin daawo kaliya iska soo qaad iska sii waa laga fiican yahay ilmaha way ku qarib maayaan daawadaas hadduu la qabsado adiga dhibaata kaaga imaanaysa cunugaagana jiraad u keenaysaa sideedaba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan kawaaniyo daawo badan ilmaha hayaan la siinin daawada dhakhtarku uu soo qoray hadday 5 maalmood tahay hadday 10 maalmood tahay taas kaliya hal la siiyo daawo xanuun baabiyaha ka dabada la iska gelinayo oo qandhab xumad jibiska ah iyo inaad dareento adiga markaad kaas u geliso inuu degayo oo qaboobayo ha u badinin haddii aad ku badiso cunugaaga dilaysa waxaad arkaysaa hadda ilmo badan oo mataqaana hadda adiga 15 jir 20 jir ah oo daawo la'aan aan ahaan karin maxaa dhacay inta yaraayeen oo dhan baa la siinayay marka ilmahaas ay dantoodana bas waaye waa dhamaatay ma shaqaysan karaan dhibaato adiga kuma shaqayn karaan waxaad imaanaysa dhibaato xoog badan oo asagiiba cudur ku jira oo waalanaya oo jinni nin qabo oo kale u noqonaya marka hadda waliba Soomaalida waxaan lagu kasi jirnaa hadda ku batay waxaa ku batay caruurtii ayuu 20 jir ah oo maalin walba meel loo wado oo meel la geynayo ninkan ma celin karo waa nervous weeyaan saas weeyaan dadku dilaya dadku sameynaya asagii dhanba asagiyaan isjecleen baan babarkee daawooyinka waa suntaasana keenaysa daawooyinka hadduna dhakhtar soo qorin ka ilaali hasiin doctor haddii canugi oo la dhalo kale oo musha lagu la jiro waqti walba ma la bixi karaa oo banaanka ma la geeyi karaa mise halis wuxuu yahay in xanuuno kale ay ku dhacaan Abdullahi aad baan kugu mahadcelinayaa cunuga haddii lagu qalo hooyada oo la soo bixiyo ilmaha kale oo kale waaye wax uu kaga duwan yahay male waxa loo baahan yahay kaliya si fiican in loo xirxiro markay ilmaha markay yar yihiin qabowgana way u nugul yihiin oo anaga waxaan banaanka aan u adkeysan karno meel aan fariisan karno asaga cunugaas uma adkeysan karo qabowgaas waa in wax looga dadaa oo si fiican loo mataqaanaa loo ilaaliyaa la ogaadaa la xanaaneeyaa laakiin wax ay ka kala gedisan yihiin kan lagu dhala haddayna ahayn 8 bilood inuu ku dhasho ama ka hor inuu ku dhasho oo lagu soo saaro markaas waa in la geliyaa baashan incubator la yiraahdo makiinada waa in la geliyaa ilaa uu ka soo xoogiisa uu ka soo noqonayo ومahadsan tahay daawadayaal waxaan idin xasuusinaynaa in isbitaalka International Health Center uu shaqeynayo 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo kala duwan oo laga keenay wadanka Jarmalka sidoo kale isbitaalka waxa laga ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska in jaayif inuu soo gaari karo isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay isliika soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad ama imikaba waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda waxaana mar walba diyaar idin ah dhaqtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada urkujirta دكتور ugu dambeyntii anagu barnaamijka soo gabagabeynayna maxaa talooyin caafimaad aad si leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed ay naga daawanaya telefishinka Somali Cable sideese looga hortagi karaa cudurradan ku dhaca caruurta Abdullahi aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo Somali Cable shaqaalaheedii iyo madaxdeedii oo fursadan na siinaya week kasta la daba taagan in ummadda Soomaaliyeed ay wacyigelin ay siiyaan meel kasta ay joogaan marka xigta waxaan leeyahay horta haddii aad mataqaanaa ubad khayr qaba ilaahay ku siiyey ubadda khayrka inaad ilaalsato si fiican aad u korsato cuntooyinkiisa aad ogaato nadaafadda aad ogaato haddii cuntooyinka iyo nadaafadda ay fiican yihiin cudurka wuu yaraanaya sida caadiga ilmaha markay yar yihiin ilaa 7 sano ay ka gaaraan waa iska cudur badan yihiin oo dhuun baa laga qaban karaa oo dhig baa laga qaban karaa waa iska ilmo dibadda u baxaya qabow soo jira waxba dhar qaadan aan haysan ama dhar culus ay haysan wuu iska baxaya caruurta ilaalis bay u baahan yihiin marmar guriga dhexdeeda in wuxuu laga yaabaa korontada inuu faraha la galo waxaa laga yaabaa dhulka wixii lagu dhaqaayo inuu iska cabo ka ilaali ilmahaaga adiga unbay wax ku tarayaan 9 bilood baa caloosha ku haysay oo aad mataqaanaa ku dhibaatoonaysay markaad dhalayso aad ku dhibaatoonaysay marka si fiican in loo korsado la ogaado hadduu cudur qabana dhakhtar u gee wax macna ku fadhiya ma aha cunugaas wuu ku caafimaadayaa markaas kadib adhowdii waxbuu ku tarayaa hadduu alla idmo waxtar buu lahaanayaa laakiin haddii ilmanimo aad mataqaana mar kastaba wiig kastaba daawo aad ku daldasho oo aan dhakhtar soo qorin dhibaataad u keenaysaa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba annaga aadan u jecelnahay caruurta saan ku aqaano Yurub saan ku aqaano halkan caruurta waa jecelnahay laakiin korsiimadiisna waa loo baahan yahay in la koriyo ma kaliya in la dhalo
korsiimadana waa in la ilaaliya iyo caafimaadkiisa iyo nadaafadiisa. aad iyo aad u mahadsan tahay mar walba talada caafimaad aad siisay dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya adduunka dacaladiisa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay cudurrada ku dhaca carruurta waxaana inaga qayb galaya dhaqtarka caanka Dr. Cali Macow Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta dhakhtarka oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalkana sanadadii ugu dambeeyay wuxuu ka howlgalayay isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight ama imika waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda sidoo kale isbitaalka waxaa laga ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska ee NHIF inuu soo gaari karo isbitaalka International Health Center waxa uu sidoo kale isbitaalku uu shaqeynaya 24 saacadood iyadoo daaweyn iyo qalabyo kala duwan lagu soo kordhiyay oo laga keenay wadanka Jarmalka barnaamijkiina waa nageynta dhanka kaamirada iyo farsamadu waa Naasir Macallim aniga Cabdullaahi Axmed Cali idin la socodsiinay dhanka talasiintana waa Dr. Cali Macow Aweys dib intaan u kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idinku soo dhaweynaynaa qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta International Health Center ama imika waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda. bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight. bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. daryeel dumar iyo carruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys. Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaallo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda.